بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأبرار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر عليه. إلهي سبحانه وتعالى يا mahad leh. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa in guud ahaan meel kasta aan joogno muslimiinta nasri iyo faraj ilaahay inuu noo waafajiyo. qof walba muraad leh muraad alkhayr ilaahay subxaana wa tacala inuu noo sahlo. albaabada farajka oo dhan ilaahay inuu noo wada furo. albaabada sharta iyo fitanta oo dhan annaga iyo ilmaheena ilaahay uu naga oodo. min fitnati dunya, min fitnati almasiix addajaal, min fitnati kulli makhluuqin ومن شر شياطين الإنس والجن. اللهم آمين. maanta waxaan rabaa iyadoo kooban in aan xusuusiyo walaalaha muslimiinta ah duco oo aan rabo qiso inaan ka hormariyo. qisadana waxaan rabaa inaan kasii hormariyo xadiis alquds. ducada waxay ka hadlaysaa qof hadduu ku dulmo in ilaahay subxaana wa tacaala aad ku dayso. dulmiga waxaa loola jeedaa qof raba, qof kaa qaatay xaqaaga, qof maalkaaga qaatay, qof gurigaaga qaatay, qof cirdigaaga ama sharaftaada dhaawacay, qof raba inuu ku burburiyo, isla markaasna aad rabto ilaahay subxaana wa tacala inaad ku dayso. waxaan rabaa walaalaha inaan xusuusiyo qiso, laakiin qisadaas waxaan ka hormarinayaa xadiis alqudsi ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay: yaa cibaadii inii xaramtu الظulma calى nafsii wajacaltahu baynakum muxarama falaa tadalamuu. xadiiskaas wuxuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala, addoommadii haddaad tihiin idhegaysta, inaan wax dulmo nafteedaan ka xarimay, marka dhexdiina inaad isdulantaan oo midkiina midka kale xaqiisa uu ka qaato waa idinka xarimay. marka dulmigu waa fara badan yahay. qof dulmaayo, dowlad kale dulmaysa, dowlad dadkeeda dulmaysa, urur kale dulmaayo, urur dad caadi ah dulmaayo, askar oo awood askareed darteeda dad ku dulmayo. intaba noocyo badan waay. marka noocu doon ha ahaado, haddii ducadan akhrisato waqtiga akhrisanaysana waa kuu sheegaya aad samayso, ilaahay subxaana wa tacaala wuu soo dedejinaya istijaabada ducada. qiso ayaan ka hormarinaya saan sheegay. qisada waxay ahayd, waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah, suuqa ayaa waxaa soo dhex galay nin dhahayo: man ra'aanii falaa yadlimanna axada, man ra'aanii falaa yadlimanna axada, man ra'aanii falaa yadlimanna axada. marka ninkaasi gacan dhan ayaa ka go'an, waa gacantiisa midig. marka wuxuu leeyahay, qofkii muuqaalkayga arka yuusan ruuxna dulmin, qofkii muuqaalkayga arka ruuxna yuusan dulmin. markaasi dadkii ayaa ku soo shamuumay, waxay weydiiyeen ninkan xaaladiisa. waxay dhaheen, niyo maxaa kugu dhacay? ninkii wuxuu yidhi, qisa idinkaga sheekeenaya. wuxuu yidhi, anoo ah nin madax ah, ciidanna wata, ayaa waxaa arkay nin garabka u saaran kaluun weyn oo qurux badan. markaasaan askarti ku dalbada, wuxuu dhahay, iga soo qaada. waa laga soo qaaday. askartu kasoo daba orday. wuxuu dhahay, waa xaqaygii, waa ilmahaygii raashinkoodii, waa gurigii raashinkoodii, war waa soo shaqaystay, ii daaya. markaasaa waxaan ku dhahay, haddaad sii joogto tallaabaan kaa qaadayaa, waa ku xerayaa, haddii kale meesha degdeg kaga carar. ninkii wuu cararay. wuxuu gurigaan kusoo laabtay, hala ii keenaan dhahay. madaxii oo lasoo jaray hala ii keenay. mar alle markii la ii keenay madaxii lasoo jaray oo dugan, markaan rabay inaan soo qabsado, afkiisii ayaa suulku goostay, waa dhiig baxay.
dhakhtaraa la geeyey dhakhtarkii wuxuu yidhi qaabka iyo meeshan waxa gaaray waxaa suurtagal ah infection inuu sii baxo wuxuuna khatar ku yahay gacanta kale marka suulka dhan in la jaro waayo suulkiyaa la jaray wax yar maalinta ku xigtay wuu xanuunsaday kadib waxay ku faaftay gacanta inteeda kale wuxuu yidhi dhakhtarkii loo geeyey gacantan intaan hore haddaan la goynin gacan weyntii ku faafaysaa gacanta intii horaa la gooyey wuu xanuunsaday dhakhtarkaa lagu celiyey waxay ku faaftay qaybta hore ee gacanta maaragtay dhudhunka qaybtan hore markaasaa waxaa dhacday dhakhtarkii inuu yidhi haddii qaybtaas aan la goynin waxaa suurtagal ah in gacantoo dhan gacan weyntii ku faafto waa la gooyey haddana ilaa waxaa la gooyey halkan waxaa dhacday xanuunkii inuu sii faafay kadib ayaa dhakhtarkii lagu celiyey wuxuu yidhi haddii oo aan la goynin ilaa garabka waxaa suurtagal ah jirkiisa dhan uu ku faafo ilaa garabkaa la jaray markaasaa wuxuu yidhi ninyahow waxbaa kugu socdee ku weydiin karaa waxaad samaysay sheekadii markaasi uu soo xusuustay ninyahow waxbaan sameeyey wixii uu ka sheekeeyey marka ninkii uu dulmay oo xaqiisii uu qaatay markaasaa wuxuu yidhi waxaa kuu fiican sheekadan ma istaagaysa jirka intaysan kusii faafin inaa xalaalowdo markaasi kadib ayaa wuxuu yidhi ninkii aan raadiyey meel kastaan galay markii kadib muddaa kasoo wareegatay ilaan wuu helay ninkii markaan arko ku boodi yidhi lugaha ayaan ka dhunkaday waa ku ooyey cagihiisi wuu isoo qabtay kor wuu isoo qaaday markaasaan waxaan dhahay ma garanaysaa wuxuu yidhi kuma garanayo kuma xasuusto wuxuu waa ninkii madaxdaa ciidanka watay adoo kaluun wata ku dhacay kaa qaatay niyahu runta ii sheeg markaan kaa tegey ma hadasho markaasuu yidhi haa ducadaan u akhristay marka waa ducada aan rabo qof walba inuu xifdiyo waa ducada isaga celinaysa ruuxa ku dulmaya dhaalimka ah ama maalkaaga ama sharaftaada ama gurigaaga ama beertaada ama xoolahaaga wax uun dhacay ama kaa harila oo dulmi kuga hayo waxaa leedahay horta waqtiga munaasabka ugu fiican waxa waaye waqtiga salaatuleylka waxaa kaloo munaasaba kugu filan adoo sujuudsan aqrabu maa yakuunu waqtigu ugu dhow addoonka ilaahay u dhow yahay waa sujuuda ama rakacada ugu dambaysa markaad tukato ataxiyaadka aad dhamayso halkaas ducooyinka la akhrisanayo haddaad ku darto ama adoo saa'im ah markaad afuraysid markay waqtiga afurka ducada waa la aqbalaa markaas inaad gacanta taagto ama waqtiga qiyaamuleylka waxaa leedahay allaahuma ilaahu ina haada kankadi taqawaa waa kankadi markaad waxaad ku fiiqaysaa ruuxi ama waxaa leedahay hadduu yahay magaciisa kasoo qaado oo kale geeli allaahuma ilaahu ina haada markaas waxaa leedahay geeli magaciisaad sheegaysaa hadday gabar tahay magaceedaa sheegaysaa taqawaa calaa dacfi xoogu ii sheegtay tabar daradayda iyo meesha uu jooga darteeda biquwatihi awooddiisa markaas leedahay allaahuma ilaahu arrinii waxaa i tusisaa qudrataka awoodahaada fiihi isaga ama fii geeli aad leedahay magaciisaad sheegaysaa ama fii fulana ama magaceedaad sheegaysaa marka ducadii seeda aan kusoo celiyo allaahuma ina haada taqawaa calaa dacfii biquwatihi allaahuma arinii qudrataka fiih intaasaa ku celcelinaysaa ilaa ilaahay subxaanahu watacaala xaqaagu kaaga soo celiyo aquulu qawlii hada waastaqfir lii walakum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu